السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبان إدي سلام يا أخيار maan akhyaartoo guud ahaan gaar ahaan rag odayaal dumar giddigiin aad baan idin salaamaya waa walaalkiin cabdiciise ciise ibraahim iyo mar labaad iyo xiisadeennii waxaan kasii wadanaynaa halkeenii xalay waxaanu joognay inagoo soo dejinay mt4 oo ku soo dejinay kombyutarkeena isla markaa furanay akoon waxaan rabaa marka inaanu caawa xiisadeennii labaad ama cajiradii labaad ee aan kaga hadlayay basic ugu dibno wax fudud weeye inaad barataan forex wax fudud weeye inaad suuqa ka shaqaysataan forex wuxuu yahay wax laga wado suuqa in sarifla yahay isla garanana marka aynu basic ku gudubno suuqa marka la joogo waxaa la isticmaalaa marka gacan hore iyo gacan dambe sidii sarifka caadiga ahay mar adaa iibinaya marna adaa iibsanaya buy iyo sell baa la isticmaalaa halkan marka la joogo suuqa forexka marka la joogo cryptocurrency uu ka duwan yahay marka forexka la joogo ee lacagaha la kala bedelayo waxaa jirta shaqo uu serverku ama brokerkeenu xalay ka shaqeeyay nimankii dilaalada shirkadaha lahaa ay noo qabtaan adiga marka laba lacag baa soo sarifaysaa khasab maaha marka labada lacagood inaad haysatid akoonkaaga ku dhacdo serverka wuxuu awood u siinayaa lacagta adaa dhiilka adaa gelaya lots baa la yidhahdaa dhiilka waan tegi doonaa baran doonaa dhiilka adaa gelaya heshiiska adaa gelaya lacagta waad kala bedelaysaa waxaad tiri buy ama sell oo hadda sharixi doono lacagtii way kala bedelantay waxaa isku bedeshay kasoo qaad shaashada waxaad ka muuqda halkaa USD Jabai waa lacag USD dollar ah iyo lacag Jabai yen ah oo laba dal markaad isku bedeshid USD Jabai micnaheedu ma ahan Jabai aad qaadatay Jabai qaadan maysid akoonkaaga waxaa kugu dhacaya lacag dollar ah akoonkaaga wixii aad dooratay haddii euro ku yahay euro kugu dhacaysa spaceka adaa markaan weynaga soo dooranay USD lacagta dalka aad joogtay aad dooratay brokerkaaga aad joogtid baa kugu dhacaysa akoonkaaga serverkan baa muxuu inoo fududeeyey systemkaas ayaa inoo fududeeyey tusaale ahaan sida saadka oo kale ama laantii saadka marka la isku wareejisto ta aad dalbataa ee markiiba kugu dhacayso adig ku noqonayso tiradaas halka kugu noqonayso ama sida akoomada markaad lacag dhigatid waxaad doontid dhigo haddaad cash geysid haddaad dollar geysidba akoon lambarkaaga maxaa lagu oranayaa $100 baan kugu haynaa $200 baan kugu haynaa markaan Soomaaliya joogno intaasoo dollar baan kugu haynaa lagu oranaya intaasoo shilin baa ku kordhay lagu oran maayo $100 iyo $2 milyan baan kugu haynaa oo shilin Soomaaliya dollar baa lagaaga dhigaya baseka shaqada ayaa qabtay bangi halkana sidoo kale brokerkii bangiga qabanaya taas waa ogeysiiska koowaad si aad ila socotaan marka wax bedelaysaan serverku shaqadu ku qabanayo waana inta badan dadka su'aalaha isweydiiya waaye suuqa see looga shaqaystaa marka suuqa waxaa la isticmaalaa waxa la yidhahdo buy iyo sell suuqa mar waa la iibiyaa marna waa la iibsadaa buy waa maxay buy ama long waa isku mid haddii lagu yidhahdo long baan galay haddii qofku yidhahdo ama short baan galay waxaa la mid tahay buy baan galay iyo sell baan galay buy waxa weeye waa inaad iibiso qiime hoos jooga oo aad leedahay kor buu aadaya kor u socda baad sii iibinaysaa kor markuu aado saasa faa'iidada ku helaysaa waa shay hoos jooga oo kuu kacaya tusaale ahaan shay 2,000 oo shilin joogay aad leedahay 8,000 buu joogaa baad buy odhanaysaa 8,000 markuu joogo 2,000 buu joogay maxaad faa'iido ku qabatay 6,000 sellna waxa weeyaan shay 8,000 joogay aad leedahay qiimaha hoos u dhacaya baad sell odhanaysaa wuxuu aadayaa 8,000 baad ka kaxaysay ilaa 2,000 maxaad faa'iiday 6,000 hoos u dhacay marna korka laga faa'iiday marna hoos waay aan tusaale ku siiyo qiimuhu markuu saa yahay qiimaha markuu hadda saa yahay marna kor buu aadayaa hadeer marna hoos fiirso markan xaguu ka yimid xag eeg halkan markan hoos buu joogaa muxuu aadayaa kor buu aadayaa waxaa odhanaysaa buy waad iibisay markan xaguu joogaa kor buu joogaa muxuu imaanayaa hoos sell tusaale ahaan hadda muxuu joogaa qiimo muxuu joogaa 113.25 waad iibisay ilaa maxaad iibinaysaa 114 kor baa u iibisay ma ogtahay haddana 114 baad kasoo iibinaysaa maxaad soo iibinaysaa up to 112 oo kale waxaan jeclahay in la fahmo buy waa iibsasho haye sellna waa iibin mar kor iyo mar aad hoos joogtid waaye waan sii soconayaa waxaa jira wax la yidhaahdo bullish iyo bearish suuqan bullish haddaad maqashid waa qiimaha marka lagu xiro qiimihii lagu furay in ka badan tusaale ahaan suuqa maanta waxaan ku furnay sarifka waxaa lagu sarifay halkii dollar waxaa lagu furay 20,000 oo shilin haddii uu ku xidhmo oo suuqaasi ku xidhmo saacad walba haddii la xisaabinayo muxuu saacadan muxuu ku xidhmay maalinta muxuu ku xidhmay 4 saacadood muxuu ku xidhmay baa loo xisaabiyaa suuqa time frame la yidhahdaa waan baran doonaa caawa
waayahay saaca haddii ka waran caawa oo suuqaasi ku xidhmo oo suuqa lagu kala rooxo lacagta la joojiyo markii lagu furay 20,000 30,000 kor buu u kacay soomaa 10,000 bullish baa la yidhahdaa qiimahaasi wixii lagu furay buu ku xidhmay bearish maxaa la yidhahdaa bearish waxaa la yidhahdaa qiimihii lagu furay oo halkii dollar 20,000 ahaa buu hoos uga dhacay muxuu tegey 10,000 waxaan qiimahaas maanta suuqu bearish buu ahaa suuqu hoos buu dhacay laga wadaa suuqu bullish buu ahaa suuqu kor buu u dhacay baa laga wadaa tusaalahan siiyo mar waa suuqa marna waa candleka marka suuqa aan si guud idiin tuso waayahay hadda waxaa maxaa idiin muuqda candleka aynu ku horeysiinaya labadan candle midna cad yahay midna cagaarka yahay midna waxaa la yidhahdaa bullish midna bearish oo maxaa loo yidhi baar candle nooc baa inoo geenaya ina tusaya sababta loo yidhi halkaasaa qiimaha lagu furay qiimaha maxaa lagu furay qiimaha calaamadaas waxay kuu sheegaysaa in halkaa qiimaha lagu furay oo lacagta ku beegan kasoo qaad 1.2 alif lagu furay maxaa lagu xuray haddii ka marto midigtana oo meesha lagu xuray oo ah qiimaha 112 micnaheedu waxa weeyaan wixii lagu furay wax ka badan baa lagu xuray maxaa sharciga marka candleka meesha lagu xuro candlekan qiimaha marka saacad weeyaan joognaa moogtahay 4 saacadood baan joognaa meesha qiimaha saa loogu xuro haddii 20,000 caawa lagu furay beri 20,000 lagu furay maanta oo 30,000 lagu xuray caawa waxaa ka soo beriyin 30,000 ka bilaabanto ama hoos u dhacdo ama kor u kacdo way isla naqaan wixii lagu xuray baa laga bilaabaya waayo candlekan xaw ka furmay marka kan ku xigaana xaw ka furmay wuxuu ka furmay qiimaha oo ku beegan 112,695 maxaana lagu xuray waxaan ku yiri mar walba ka midigta jira lagu xuray ka bidixda joogan waa lagu furay ku doona noqday mar walba midigtan baa midigtan waa ka lagu xuray open baa la yiraahdaa open baa waa meesha lagu furay kan bidixda kan midigta ku joogana bidixda mar walba waxaan ku yiri qiimaha waxa lagu furaa bidix waxaan lagu xuraa midig markana waxa lagu xuray waxay ku beegan tahay exact ka soo qaadan ku beegan tahay 112 laakiin dhibic 115 waa qiimo ka yar waxaan oranaynaa waa bearish candlada hada way fahanteen waxay midabay ka dhigaan midabku macna ku sameey maayo midabka badana cagaarka waxa laga dhigaa bullish haduu yahay bearishna cagaar casaan iyo cadaan bay ka dhigaan marka qaar kood madow iyo hada kan waa madow kana waa casaan si doona ha noqoto caawa tagi doona candlada midabadooda waa iska bedeli kartaa saa doonta bedeli kartaa laakiin maxaa ila fahantay qiimaha hadii 2,000 lagu furay oo 5,000 lagu xuray micnaheedu waa bullish haddii 5,000 lagu furo 2,000 lagu xurana waa bearish kor socod iyo hoos socod bay ku sheegayaan suuquna waa loo isticmaalaa hadda suuqa hadaan ku yiraahdo halkeeba bearish halkeeba bullish maxay uga odhanaysaa waxaan qiimaha suuqa markuu halka marayay bullish buu noqday waayo halkana lagu furay halkaas lagu xuray halkan buu suuqan si ka tagay ilaa qiimaha buu ka tagay ilaa qiimaha soo socday bay odhanaysaa markuu suuqu qiimahan uu ka tagay markuu soo noqonayo fiirso markan suuqa saa soo dhacayna waxa oranaysaa suuqani bearish buu ahaa ilaa halka suuqani bearish buu ahaa maxay oranaysaa wuxuu ka soo tagay 114 buu ka soo kacay ilaa muxuu soo socday 110 soo ma jeedid ilaa 110 buu soo socday qiimahani bearish uu tagay marka maxay oran kartaa suuqa maanta markaad ka sheekeynaysid suuqi maanta bullish buu ahaa way oran kartaa ama bullish baan u jeedaa kor wax u socda u jeedaa weeyaan bearish baan u jeedaa hoos u socda weeyaan bullish maxaa loo isticmaalaa buy bearish maxaa loo isticmaalaa sell waaye bearish maxaa ku dhisan maxay ugu dhismayeen suuqu waaye suuqa marka wuxuu ku dhisan waxa la yiraahdo supply and demand waxay supply and demand waa taqaanaa supply waa in wixii badato quudintiina badato shaygii bato tusaale ahaan carwooyinkii oo dhan waxay wada keeneen shaararka ragga ee hal midab ah way badatay haddii shaygu saa u bato maxaa dhacaya qiimihiisu hoos buu dhacaya maxaana yaraanaya baahida loo qabo demandkii baa yaraanaya suuqana waa sidaas oo kale dad badan baa iska iibiyay ma jeedaa dad badan baa iska iibiyay maxaa marka halka la iska iibiyay kala joogay maxaa dhacaya demandkii baa yaraaday waayo maxaa batay supply-gii mar hadduu demandkii yaraado oo baahidii loo qabo yaraato maxaad suuraysanaysaa inuu qiimuhu soo dhaco marka suuqan saas lagu xisaabamaa marna shayga waxa qaaliyeynaya shayga kor baa loo wadaa supply-gii demandkiisa yar waxa la demandkiisa badan maadaama kor looga baahan yahay kor baa loo wadaa kullama marka candle kor u kaco qiimuhu sii qaaliyoobaya kor buu tagaya cidi ma gadan karto qiimihi waa qaali saa darteed baahi loo qabo
waayo supply-gii waa farabatay. Supply-ga hadduu bato dhimaanku hoos buu dhacayaa, qiimuhuna qaali buu noqonayaa. Maxaa loo baahan yahay marka dadkii in loo geeyo meel ay kusoo iibsan karaan? Dadka maxay samaynayaan? Sell, qiimo hoos u dhacaya, hoos u dhacaya, hoos u dhacaya. Macnaha supply-gii baa yaraanaya, maxaa badanaya dhimaanka badanaya ilaa la keeno hoos. Markaana qiimihii waa la waayey. Shaygii maanta haddii aad 100 shaar oo cad haddii la isla keenay oo nooc kamid ah shaararkii saafida la odhan jiray kale haddii la isla wada keenay ama garmadii digta la odhan jiray haddii la isla wada keenay oo dadkii meheradihii oo dhan wada hayaan, supply-gii baa batay, aad baa dalka usoo gashay wixii. saa darteed sarifkana way dhacdaa marka kaashku badan yahay. Hadduu kaashku badan yahay maxaa jira? kaashku hadduu bato maxaa loo baahan yahay? dollar. baahi waxaa dhacaysa dhimaan dollara. saa darteed muxuu noqonayaa dollarku qaali. kaashkii fara batana muxuu noqonayaa wax jaban. waa ila fahantiin? supply and demand waxa laga wadaa marna kaashka badanaya marna dollarka badanaya. marba ka bato mooy ka bataana uu qiimo jabaya, ka yaraadana qaali buu noqonayaa. exactly waa inta. waayahay demand and supply buu suuqan ku dhisan yahay. marba mid baa bata dadku way yaqaanaan. tusaale ahaan idinku waa taqaanaan wariyaa dollarkii qaali buu noqday, dollarkii qaali buu noqday oo maanta waa lagu sheekaysanaya dollarkii maanta qaali buu noqday. maxaa la filayaa inuu soo dhaco? marka dawladaha jira ilaaliya. inaga ka Soomaaliya markaan joogno sarifkeena shacabka iska maamusha, dollarka hadduu kaco ma soo noqdo. laakiin dunida waa la ilaaliyaa. waayo in macaashada iyo laakiin dunida waa la ilaaliyaa. waayo in sicir bararka iyo kacaan lama ogola. waaye supply and demand waa la fahanteen, buy and sell waa la fahanteen. waaye buy and sell sidee loo sameynaya? buy and sell waxaa loo sameynayaa haddii waxaa laga yaabaa inuu halka kusoo dhigo halka buy iyo sell baa kugu qoran. ma ujeedaa? buy maxaa kugu qoran? sell waa u sameyn kartaa oo uu kuusoo bixi doonaa. waxaad kaloo loo sameeyaa order. new orderka as halka ku dhufanaysaa. haddaad ku dhufatid wuu kuusoo baxayaa buy iyo sell. tusaale hadda buy baan ku dhufanayaa. buy wuxuu igu yidhi losseska aadan kordhiyey oo u tegi doonaa sababta igu diiday. lacag badan kuuma jirto uu taagan yahayba 0.01. buy baan ku dhufanayaa. wuu shaqeeyaan qiimihii. xagaa ka arkayaa? waa kan qiimihii buy baan idhi maarta wuu shaqeynayaa. markaan doonaya inaan kansalo bidix baan ku dhufanayaa, close baan odhanayaa. waaye mar walba ma ogasho? waan ogolay mar walba amarkaasa. waaye already marka maxaan ku dhufanayaa bidix close isxurayaa. waaye sellna maxaa odhanayaa? halkii oo kale aan tegayaa new order. lacagta la ii soo diray signalkii waa isagii waan hubaa oo kaasii feature buy waa meeshan joogay. sell waan odhan karaa. saasaa sell iyo buy loo sameeyaa. maxay ku kala duwan yihiin? sell haddaan idhi qiimahan waa inuu u socdaa hoos, tanoo kale hoos u socdaa. marka waa inuu hoos qiimaha sii gaadhaa. hadduu hoos gaadho faa'iido waa inuu sameeyaa. hadduu hoos gaadho waa inuu faa'iido sameeyaa. hadduu noqdo qiimahan sell baan idhi hadduu kor u noqdo maxaa dhacaya? hadduu kor noqdo minus waxa weeyaan meel khaldan baan galay. hadduu hadda soo markuu saasoo kale kan saa u socdo sell baan odhanayaa. markuu kor u socdona waxaan odhanayaa buy. waxaan iskaga kansalayaa iskaga xurayaa sidii hadda yaro kale. waan tegi doonaa qaab fara badan loo kansalo laakiin buy iyo sell sida loo sameeyo waa fahanteen. xaggee laga sameeyaa buy iyo sell waa ila fahanteen. waan iska xuraya waxaan xurayo waad baran doontaa. new orderkaas waa laga sameyn karaa baan ku yidhi. waa soo kicin kartaa new orderka halka kuu qoranta waa soo kicin kartaa. waxaa kaloo laga sameeyaa lacagta inaad dul tagtid daaqadda lacagaha oon tegi doonaa wax loo isticmaalo. waaye lacagta inaad u dul tagtid magaceeda raasatid bidix ku dhufatid new order kuu soo baxo kii haddeera kuu soo baxaya. bidix baad ku dhufanaysaa waxaa leeyahay midig baad ku dhufanaysaa ka u sarreeya kuu soo baxa new order baad ku dhufanaysaa. qaabkana waa loo sameeyaa. waaye casharkeena sii wadana marka hadda way la fahanteen waxa yahay sell buy short buy sida loogu dhufanayo sell sida loogu dhufanayo way la fahanteen. casharka labaad waayahay waxaa jirta suuqa marka maadaama sell iyo buy odhanayo maxaan ku xisaabtamayaa? see wax u helayaa? maxaa cabirkan wax ku helayaa? maxay tahay su-aasha is weydiinaysaa. waxaa jirta waxa yidhahda beep. beep waa maxay? beep waa cabirka waa measurementinga waa cabirka lagu xisaabiyo dhaqaaqa suuqa sida dhulka loogu xisaabiyo mitirka. dhulkaas waa intaasoo mitir soo ma maqashaan? halkana maxaa yidhahdaa wuxuu suuqu dhaqaaqay intaasoo beep. waxaan iibsaday intaasoo beep. waxaan iska iibiyey intaasoo beep. waxaan khasaaray intaasoo beep. waxaan faa'iiday intaasoo beep. qaabkan baana loo xisaabiyaa markii halkan la joogo. waaye beepku waa maxay marka? beepku lacagta halkaa ku qoran lambarada halka ku qoran waa lambarka afraad. lambar halkan kugu qoran yihiin lambarka afraad weeyaan. waa inaan kugu soo qoray bointiga ka dambeeya. bointiga ma ujeedaan? halka bointi baa ku qoran dhibicda 1 2 3 ka afraad baa beep la yidhahdaa. kan bointi baa isna la yidhahdaa. uma baahna haddee beepka waa kan dhaqaaqa la xisaabiyo suuqa dhaqaaqa waa kan
suuqan wax weyn ma dhaqaaqo xarafkaan baa isbedela waaye waa lacagaha marka laga reebo jabay lacagta la socoto iyo dahabka lacagta jabay iyo dahabka la socotana waa bointiga marka laga tago koomada marka laga tago waa ka labaad koomada marka laga tago ka labaad maxaa yiraahdaa biib maxaan kugu yiri aan markale kugu soo celiyo waxaan ku yiri biib waxa suuqa lagu xisaabtamo waayahay biibku waa lambarkee waxaan ku yiri waa measurementiga loo isticmaalo suuqa biibku waa lambarkee waayahay biibku waa lambarka afraad dambeeya koomada 1 2 3 4 tusaale ahaan qiimo waxay ku qoran yihiin qiimuhu waa kuwan halkan ku qoran yihiin wajida waxaan waa qiimihii marka koomada waxaad ka tirinaysaa 4 soo jeeda waa ka afraad way la fahanteen marka laga reebo jabayda iyo marka jabayda laga reebo dahabka kuwa waxaan ku waa goorma waa ka saddexaad aan tusaale ku siiyo live marka kuwan tusaale live halkan ku haysataa kuwan hadda lacagta marka dhow joogno dhan maarta waxa la socota jabay lacag walba jabay la socoto maarta CHF jabay lacag walba jabay la socoto iyo lacagta dahabku way ka duwan yihiin waaye ayagu waxaan waa imisa waa biibku waa kee waa koomada lambarka marka laga xigo lambarka labaad ee koomada ku xiga kan kama ku xiga weeyaan salaam samaysatid waaye dahabkana waa intuu say marka aan dahabkana ku tuso waa kan dahabkii marka dahabkina waa kan maarta 128 218 ko dhibic 24 waa koomada waxa ku xiga laba lambar lambarka dambe koomada waxa ku xiga laba lambar waa lambarkan dambe bareer habib gacan hore gacan dambe way meesha ku qoran aski price oo tagi doona beedi price waxa yiraahdaa gacanta hore aski price no gacanta dambe yiraahdaa macnaha hadii aad buy tiraahid qiimahan buu kaaga bilaabayaa hadaa sell tiraahidna qiimahan buu kaaga faa'iidada waxa u dhaxeeyana waxa yiraahdaa spirit waxa u dhaxeeyana waxa yiraahdaa spirit way la fahantay ma jecla halkan waa gacan hore BID hadaa maqashaan BID hadaa maqashid waa gacan hore askin hadaa maqashid waa gacan dambe gacan hore iyo gacan dambe weeyaan meesha ku maqashid waan ku tusi doonaa baaga ku yaalan computerka marka ku serverka ku xisaabinaya waxa aad isku waalimaysid labadaas lacag baa u dhaxaysa lacagta u dhaxaysa waxa la yiraahdaa waxa lagu soo saaraa left click baan oranayaa spirit oo ku qoran oo jeeda lacag u dhaxay wata lacag u dhaxay waxa la yiraahdaa spirit waa faa'iidada u dhaxaysa labada gacanta hore iyo gacanta dambe maxaa loo yaqaanaa spirit haddaan iska qarinayo waxaan ku dhufanayaa left click baan ku dhuftay right click baan ku dhuftay spirit baan tigta ka qaaday way iska qarinayaan haddaan doonayo spirit ka lacag ogaado right click baan ku dhuftay spirit baan soo saaray aski price iyo BID price waa gacan hore iyo gacan dambe hadhowtaan dul mari lahaa laakiin hadda kadib isma weydiinin iga kansan casharkii soo wado marka waaye waxaan jeclahay way la fahanteen waxaan rabaa inaan baraadka inta soo si aad computerkiina aad ku in badan eegtaan waxaan in badan bay isku noqon doonaa saa darteed waxa u baahan tihiin qoliga inaad fahantaan waaye biibku marka see loo xisaabiyaa biibka waxa loo xisaabiyaa marka aan anisof wax weyn ma ahaba labadii lambar baad kala jaraysaa hatta haddaan labada lambar kala jaro eeg waa labada lambar waa kuwee waa labada lambar waa kan see loo xisaabiyo ka soo qaad tusaale ahaan 1.14 1.dot 148 waa tan 1 dot 144 waa tan labada lambar haddaan kala jaro qiimaha ii soo baxa maxaan u qaybinayaa qiimaha ii soo baxa maxaan u qaybinayaa 0.301 labada lacagood baan kala jarayaa labada lacagood tii aan ka soo galay ka soo qaad waan ku soo waray qiimaha ma ka soo galay qiimaha ma ka soo baxay maxaan ahay sell ila maxaan ku yiri selku waa beerish ku waxay waa in qiimuhu kor ka yimaado hoos soo aado markaan qiimaha ka soo galay oo aan qiimaha ka baxay maxaa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya baan xisaabinaya waa intee biib baan faa'iiday maxaan sameeynaya labada lacagood baan kala jaraya markaan kala jaro maxaan qaybinayaa 0.301 waa qaacido weeyaan markaan u qayb wixii soo baxa maxaa la yiraahdaa 41 bib 41.2 bib baan faa'iiday point 2 waxaan ku yiri waa point waayahay lacagta labada lacagood ee jabay dahabka soo loo xisaabinayaa waayahay waxaan ku yiri ka soo qaad jabaydu wata bibku waa point marka tago kala baad soo maaha lacagtii aan ka soo galay oo qiimaha ahayd maxaan ka jarayaa lacagtii aan meeshii aan kaga baxay ka soo qaad waxaan ka soo galay 113 waxaan ka baxay 112 ina waa sel hoos baan soo galay soo maaha wax qiimaha maxaan u qaybinayaa 0.01 yada
waayo biibka waxaan ku yidhi koomada marka laga tago waa ka labaad kanna 0.301 waayo koomada marka laga tago waa ka afraad waxaa kuu soo baxay 178 biib baan faa'iiday ama khasaartay oo qiimahaasi dhaqaaqay way la fahanteen sida in labaad loo xisaabiyaa inaad isticmaashid mastarada xisaabinta mastarada xisaabinta halkaas laga soo baxaa waayo aan tagno kii aan wax ku tusayay mastarada wata waa halkaa mooska meesha ku xigta mastarada ka wajeedaan halka ku xigta weeyaan karshiga ka qoran tahay waxaan ku qabanayaa meeshaan doonayay inaan wax ka cabiro waxaana keenayaa ilaa meeshaan doonayay inaan soo wado halkaa sida idiin muuqata saddex shay baa soo baxay oo u dhaxayso slash 39 slash 1593 slash 112 dot soo ma dhaxayso ta u horeysa waa inta kandhal ah soo dhaaftay waa inta bahaladan yar tiradan yar yaala xabaya soo dhaaftay ma rabo ta dhexe weeyaan ta u dambeysana waa qiimaha la marayo qiimahan maartaa way kuu sheegaysaa qiimahan hadda la marayo qiimo ma la maraya kuwaasi kuu soo qabanaysaa waxay ku tilmaamaysaa taariikhdii tan dhinacan xigta waxay ku tilmaamaysaa qiimaha lacagtu marayso baraysku marayo waa inaad labadaasaa kugu sawir kartaa maxaad ku samaynaysaa marka waxaad ku qabanaysaa meeshii qiimuhu kasoo bilaabmay aad doonaysid meeshaad doonaysid inaad ka geshid markaa saa u saartid waxaad qabanaysaa left click ta bidixda mooska ka bidix baad dhag siinaysaa kadibna mooska waa soo jiidaysaa xagaa keenaysaa meeshaad doonaysid inaad gaadhsiisid oo halkaasoo kale ah maxaa kuu soo baxaya saddex lambar 42 slash 348 slash 112 dot 700 soo maaha slash 112 dot 700 42 dooni maayo 42 waa waxaan yar yaraan soo dhaafay kandhalaan soo dhaafay koowaad weeyaan maxaan doonayaa ka dhexe 1236 ka dhexe waxaan dhexe ii soo baxay laba slash laba dhinac laga xigo baan akhrisanayaa lambarka ugu dambeeyana akhrin maayo 7 u dambeeyana ma akhrin maayo waxaan oranayaa 128 biib ka point baa lama akhriyo 128 biib waa inta u dhaxaysa marka masradan waxaan ku yiri masrada ku dhufo meesha doonaysid bilow in ka bilowda saar hoos u wad ilaa meesha doonaysid inaad geysid sodon kooda ka horeeya akhrin slash labada slash dhexdooda lambar ku qoran akhri ka u dambeeya waa qiimahan lacagtu marayso waa qiimahan lacagtu marayso ku yiri ka u horeeyana waa intan kandhaladan inta soo dhaaftay maxaa akhriyaysaa baan ku yiri ka dhexe maxaadan ka reebaysaa marka lambarka u dambeeya 129 biib baad haysataa labada qaab baa loo cabiraa waxaan jeclahay inta biibka iyo sida loo cabirana inaad ila fahansan tahay ma sha Allah waaye waan sii soconayaa waaye waxaan rabaa marka inaan ka wada hadalno iyadna oo aan ku daro xisaabta shay ah mt4 kan wuxuu ku kooban yahay sida loo soo saaro ka caawa xisadeena 20 daqiiqo ka dheeraan doontaa insha Allah hal iska duqaato hal akhristo waaye waxaan doonayaa in hore u socono waaye waxa uu ka kooban yahay mt4 kan iyo sida shaqada uga socoto bayna dul marana waan kusii xushin doonaa insha Allah binda orderski waxay yihiin waan kusii xushin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka ila socda suuqa markuu soo weegi horta kor baan ka soo bilaabaya halka file ku qoran tahay waxa ku jira wax fara badan file waxa ku jira wax fara badan halka u sareeya new chart haddaan ku dhufto tanoo kale isu saaraya tusaale ahaan haddaan saa ku dhufto lacagaha mid doori igu leeyahay teebaan kugu dhuftaa halkana lacag kale ku jira halkana lacag kale ku jira ma jeedaa lacagaha mid baa ku dhufanaysaa ee wareegaya dhag wadaaqad cusub tii hadeer maaha tii hadeer waa tan calaamadu inoo taalay horta daaqad cusub ii keen ma jeedaa waa fileka tawsar inta ku dhufto offline ka open u baahan doontaan safe bit ku u baahan doontaan laakiin halka waxa kale idinka muhiima waxa la yiraahdo aan waxa idinku muhiimsan baan idin taabsiinaya waxa kale idinka waqtiga idin bari doona insha Allah open an account haddaan ku dhufto muxuu keenaya meeshii markii aan ka soo galnay furaynay haddaan next yiraahdo waa kan haddaan account cusub furanayo haddii aan mid real iyo furanayo deemadaada adoo isticmaalayo bahalka safety kan ba waxa samaysan kartaa deemadadan adoo isticmaalaya maxaa samaysan kartaa kaagan maxaa samaysan kartaa akoonkaaga dhabta ka furan kartaa maxaa nasaa new real account oran kartaa existing trade account badan kartaa kii jiray lambarkaaga ku qoraysaa macnaha wax adag maaha halkana global kana maxaad ka soo bedelaysaa inagu waxaan dooranay xalay waxaan dooranay forecast aan dooranay maadaama kaasi inoo ahaa deemadeeni haddii real aad ku isticmaalaysid serveradan ay ku qoran tahay real kan real baa ku qoran kuwa real serverkaaga dooranaysaa furanaysaa haddii deema aad isticmaalaysidna deemadaada aad ku qoranaysaa waaye halkan way la fahanteen baan jeclahay aan ka soo gudbo marka faylka halkaas ay ugu muhiimsan faylka halkan kan saliga cusub furi maayo
faylka kaasaata igu muhiimsan waxa kale waa pset appskiyo waad ogaan doontaan waxa igu xiga viewgan waa kagu muhiimsan in badan bayd ku dhici doontaa viewgan waxaa ku jira dhammaan waxa weeye itus waxaanoo dhan baa ku jira waxaa loo isticmaala waxaanoo dhan baad ka dooran kartaa tusaale ahaan view haddaan ku dhufto haddaan kan ka qaado market watchka haddaan ku dhufto wuxuu is saarayaa saacaddii saacadan market watch baa la yidhahdaa maxay kuu sheegaysaa saacadani saacaddan waxay kuu sheegaysaa labadii qiimood qiimuhu lacagtu intay marayso gacanta hore iyo gacanta dambe way kuu sheegaysaa sbiriidka labada lacagood farqiga u dhexeeya haddaad dooranaysid dhammaan magacyadii lacagaha waayahay waxaan ku darayaa marka saacaddan sidee lacag ugu soo dari karaa seese lacag uga reebi karaa lacag iga maqan see ugu soo dari karaa seese hee uga reebi karaa haddaan doonaya inaan saacaddan lacag kusoo daro ama aan ka reebo waxaan ku dhufanayaa view eg waxaan ku dhufanayaa symbols maxaa soo baxay daaqadan haddaan waxaa ku furanaysaa kuwa meelaha balaas ku qoran yahay ku dhufo lacag ka dhex raadi aad doonaysid kan kuma jirto waayahay kan labaad ku dhufo lacagaha dahabiga ah kuwa dahabiga u eg waa lacagaha aan kugu jira kuwa aan dahabiga ahayna waa lacagaha aan kuwa cadcadi waa lacagaha aan kugu jirin marka lacagta u baahan tahay ku dhufo kuwan waxa wada lacag kasoo qaad lacagahan kasoo qaad waxaan kugu jirin lacagahan kasoo qaad lacagaha caanka aynu isticmaalan USD turkigaas kale kuma jirto haddaan laba shay dahabi ka dhigo maarta USD turki maxaa iisoo fuushay wadada ugu hooseysa ilaa waxaan ka dhigay dahabi ma ujeedaa dahabi waan ka dhigay haddaan dahabiga ka qaada eeg ma ujeedaa falaadhi u hooseysa eeg meeshii way ka tagtay ma ujeedaa meeshii ma taalo gool baa u hooseeya haddana dahabi waan ka dhigayaa laba shay ku dhufanaya iyadaa haddana u hooseysa ma ujeedaa marka lacagta u baahan tahay baad laba jeer ku dhufanaysaa taad u baahan tahay laba jeer ku keenaya taad u baahanayna waad ka qaadaysaa taad u baahanayna laba jeer ku dhufanaysaa ha caddaato way la fahanteen sida lacag lagu soo darso sida lacag laga reebo waaye waxaa kaloo muhiim ah doonaya la fahantaan waxa la yidhaahdo terminal halkan maxaa ku qoran terminal haddaan ku dhufto waxaa soo baxaya shaashadan market watch haddaan iska qaadayo market watch waxaa kaloo laga helaa waxaa kaloo laga helaa baarka ota market watch ma ujeedaa terminalkan waxaa kaloo laga helaa halkan waa ku dhufan karaa say saacadda baasha iga qaadanto haddaan ku dhufto way qaadantay ma ujeedaa haddaan mar labaad ku dhufto market watchku soo baxay haddaan ku dhufto uu qaadan terminalka day haddaan ku dhufto soo qaadan marka terminalku waxay ii sheegaysaa dhaqdhaqaaqa suuqayga tusaale ahaan lacagta igu jirta balansiga equity-ga waxaa la yidhahdaa lacagta balansigaaga oo lagu daray faa'iidadaada ama khasaaraha tareerka soconaya intuu tareerku soconayo weeyaan haddaad closetiisa kuma jirto free margigu waa hadhaagaaga waayahay aan intusayo tareer soconaya sel ama buy baan odhanaya eeg sel wow tareer baa furmay ma ujeedaa maxaa soo baxay margin level waxa la yidhahdo margin levelku waan u tegi doonaa margin levelku wuxuu sheegayaa lacagta leverage-ka aad dalbatay kuu sheegayaa waayahay free margin waa lacagta tareerka kuugu soconaysa marka laga reebo lacagta tareerka kugu socon mayso lacagta tareerka kuugu soconaysa marka laga reebo waa lacagta hadhaagaaga kuu soo hadhay tanna waa blokerkaaga percentage-kii boqolkiiba intaad ka maraysid tan lama ogola in percentage-kaas la iska ilaaliya inuu yaraado hadduu yaraado already lacagtaadii waa badan lacagtaadii dhan baday ku jirtaa weeyaan khasaaraheeda wuu kaa xuraya hadduu kaa yaraado waayahay waxaan jeclahay way la fahanteen terminalka maxaad ka ogaanaysaa balansigaaga lacagta kugu jirta waad ka ogaanaysaa ka horeeya balansigaaga waad ka ogaanaysaa traderka ka soconaya faa'iidadiisa khasaare wuxuu halkaas ku daraya waxaan oo dhan kuu sheegaya everything waaye lacagta wuxuu kuu muujinaya halkaa lacagta hadday minus ka horeeyo micnaheedu waxa weeyaan khasaaraad ku jirtaa haddii sidaas oo kale bilaab minus tahay sida hadda door kale bilaab minus marba noqonaysona waa lacagtii faa'iida ku wadaa weeyaan haddii minus ka horeeyana waad ku jirtaa weeyaan sida loo close gareynayaa orderkan waxaad ku dhufanaysaa right click waxaad dul tagaysaa halkaa buluuga ah waa halaad garanaysaa halka marka buluug noqoto right click waad ku dhufanaysaa right click ku dhufatay close ku dhufo wiga xurmay terminalka waa fahanteen traderka kuu soconaya buyers marka lacagta kuu soconaysa meesha xaalad marayaan systemkuna ba laga socdaa waxaa kaloo laga socdaa terminalka account history-gaagii halka explore ku xigta waxaa ku sii xiga waxa la yidhahdo account history muxuu kuu sheegayaa account history ku dhufanaya marka ku dhufata account history wuxuu kuu soo sheegayaa aan kor u qaado waliba taariikhdii aad martay buu kuu sheegayaa
inta trade gashay wuxuu ku sheegaya inta trade gashay waxaad ku khasaartay depositkaaga lacagtaad soo dhigtay akoonka uu ku sheegayaa lagu bilaabay ku sheegayaa tradeadaadi khasaare iyo faa'iido waxay ahayn ku sheegayaa total faa'iidadaadi khasaarahaagii oo laga jaray wixii ku soo haray uu ku sheegayaa hadday wax kugu darsameena uu ku sheegayaa hadday wax ka hadhayna faa'iidadaadi khasaaraha ku soo qoraya waka wuxuu ku soo qoraya profit iyo losska plus credit-ki wixii lagu daray plus deposit-ka lacagta dartay withdrawal lacagta la baxday everything uu ku soo qoraya magacyada lacagaha waa kuwan xakan waa taariikhdii trade-ka sameysay losses-ka ku gashay lacagta ku gashay buy hadaa tiri hadaa sell tiri buy sell waaye waan ka soo gudbaya haddana xisadu dheeraato dib ha warkina waayo waxaad qeybisid maaha waxaad loo baahan yahay inaad fahantid quriya laga rabaa waxaan inaad fahantid bisa laga rabaa 10 aad qeybisid maaha maxaa kaloo ku xiga waxa navigator navigatorkaas wax badan baa laga helaa kow maxaa laga helaa akoonkaaga meeshuu ka furan yahay ma jeedaa akoonkaagii waka dadkii aan xal sameynay sharaaciise asiga furan yahay maxaa laga helaa waxa la yiraahdaa indicatorsku waa tusayaal waa tusayaashu waxa la yiraahdaa waa wax kuu sheegaya waxaan aad joogtid noocu yahay ma buy mise waa sell ma kor buu aadaya mise waa hoos buu ku tusayaa suuqu waa turjume suuqu kaaga turjumaya marka indicatorska waxaa loo isticmaalaa confirmation cadayn suuqa laguma galo ardayda IML laga too kale waxaan rabaa inaan sheego marka IML joogtaan web analyzer-ku wuxuu kamid yahay indicatorska waa tilmaame waxaad barataan hormoniga iyo T-Cafka kuwa jeclaada oo lacag ku bixiya hadda ku bixinaysan oo hadda barnaamijsan barta waayo waxay ku sheegayaan structure-ka suuqa ka sheegayaan indicator-ku dadka caajis buu geliyaa waxba web analyzer lacag ku bixin web analyzer asuna waayo aad maxaa u baahan tahay mustaqbalka inaad lugahaaga ku istaagto oo shaqaysatid IML waxaan ugu jirnaa dee waa jaamacad waxbaan ka baranaa macnaheedu waa maxay 30 sano 40 sano jaamacad lagu jiraa may waa inaan ka gaadhaa inta lugahaaga ku istaago aan ka tagaa haddaan IBO system ku shaqaysanayo waa meesheeda laakiin hadda web analysis ka daba fadhiisatid oo ama aad daba fadhiisatid indicator tamciin waxa xitaa marka tagasaan hormoniga marka aadasaan macallimiinta ku oranaya entry point-ga faran oo kale wuxuu ku oranaya 5 boqol ku gad doono yarka kale oo kale kuwa ha dhageysanina warkooda macallimiinta waxay dib u dhageysaneen maxay ku sheegayaan nimankaasi waxay ku sheegayaan wax kugu xuraya waliga in ay joogtid uma baahnid sida business-ka uma baahnid ku dhex jirtid arday baa tahay wax ka baro taas oo wana wax barasho ka tagtaa saadad maxaad baran kuwa aqoonta ku baraya macallimiinta aqoonta ku baraya kuwa istiraatiijiyada ku baraya aad kaliya suuqa ku isticmaali kartid ha tagin ninku baraya wax aad ka tagi karin ha tagin ninku baraya 5 booling bar oo la soo furanayo faran la yiraahdo kale 5 bool Soomaalidu aad buu isticmaashaa garamay sababta macalinka bariga hoos aan baan galay isaga 5 booling bar buu ku baraya waliga waxaad hoos joogaysaa hormoniga waayo waxaad baratay sida hormoniga loo galo maadan baran wuxuu hormonigu yahay tag macallimiinta ku baraya hormoniga sida loo isticmaalo maani guwido kale waayo indicatorsku marka waa tusayaal loo baahan tusayaal waqtiga ku lumis baro mid walba baro wuxuu ku tusayo si uu kugu caawiyo waxa ishaadu arkaysay waxa xaqiijin waxa ishaadu arkaysay inuu kugu caawiyaa exactly ma aha asagu inuu wax ku tuso ishaadu wax tuso ma ishaadu waxa arkaysay salahan ka soo qaad hadad tugaan aad garanaysan hebel baan u baahanay meesha ku yaalay ilaa tus de markuu ku geeyo waad garanaysaa meesha ilaa waad ogtahay waxa ogta ku tusay laakiin tukaan baan u baahanay tukaanka dunta lagu geenayo tukaamada meel kala garanaya buy sell wuu ku sheegaya yar oo kooban meesha ku dambeeyaan ku sheegi maayo way arka taasan kaga baxaya ardaydu saysan bilowga ah saysan waqtigooda ugu lumin indicator iyo analyzer iyo waxa aysan waqti ugu lumin iyo istiraatiijiyada lagu leeyahay saasa lagu galaa waxa lagu galaa qofka waliga waxa wax ka qaata ninka ku baraya suuqan wuxuu yahay suuqan kandalkan waayo halka uu aaday structure-kan waxay naqshadu sameeyaa suuqan tusaalahan naqshada hadda uu sameeyay saddexdaas siman waxay ku sheegaysaa in la noqonayo naqshadaas hadda maxay u egtahay tusaalahan naqshadaas kale maxay u egtahay naqshadaas hadda waxay u egtahay garab وتم بريني وبرد نقطة جدا تعرض عصب لما جرب يا مدح حكوش شيء سين لا نقنيو نقشة محاولتي صدح شرب طابتي حكوش شيء سين لا نقنيو نقشة هذا محاولتي علم بيوقتي سوق وسيدة نقشة سمية ما كان نك كبر يا نقشة معلومات كبر سي أيمل أمريكا أوتك لكن نك وحن أن كاله هاللين أكورنا يا إنديكاتور سوكعي هذا إنديكاتور إصدافه هذا مو في نفس إصدافه هذا واحد إصدافان كبر يا واحد كوه لسه نو صاحب وقت وكالمي نكاس ما دعي اسم واي هوري أو صعنا مرك navigator way fahanteen soo soco waxaanu u baahnay new order-ka waa meesha buy iyo sell laga sameeyo waa meesha pending orders-ka laga sameeyo sidoo nagu dhaaratay waan soo gabagabeynaa waxaan kuga baxnaa inaan waxa meesha ku yaala aan baratid
marka buy iyo sell haddaad samaynaysid vendor orderska sida looga sameeyo wuu tegi doonaa laakiin buy iyo sell baa laga sameeyaa waad fahantaa oo marinaya kasoo tag maxaa kuu soo hadhay saddexdan shay markaad soo dhaweysatid bahalka marka mooska soo dhaweeyo kana waa laga fogeeyaa kana waa laga soo dhaweeyaa haddii analyse aad samaynayso waa inuu kaa fog yahay haddaad doonaysa wax dhow aragtidna waa inuu kuu dhow yahay marka kan mar waa candle waan baran doonaa mar noocaas ka dhigaya waa candle waa tilmaame candlekani waa tilmaame kuu tilmaamaya xaaladda nimanka iibsanaysa awoodda nimanka iibsanaya mar hadduu saa u buuxo uu saas kula buuxo micnaheedu waxa weeyaan awood fiican bay leeyihin nimanka wax iibsanaya hadduu sidan oo kale caato u yahay kuwan yanyana weeyaan awooddoodaa yar marka waa qaab kuu tilmaamaya awoodda dadka iibsashada iyo kuwa iibsanaya kuuna sheegaya meesha la aadayo meesha qiimuhu laga furay iyo meesha lagu xidhay waan idiin sheegay bearish iyo bullish haddii cagaar uu noqdo qiimuhu kor buu socdo meesha lagu xidhay way kala horeeyaan haddii uu caddaanka saas u dabadhigmo noqdona waa bearish ama waa sell suuqu waaye kan baar baa la yidhahdaa baarku waa maxay baarku keliya muxuu kuu sheegayaa wuxuu kuu sheegayaa qiimahan meeshii lagu furay iyo meesha halkaasaa lagu furay uu leeyahay mar walba bidixdaa lagu furaa midigtana waa lagu xidhaa keliya wax kale kuu sheegi maayo qiimahan halkaasaa lagu furay maxaan kuu yidhi wuxuu kuu sheegaa meesha laga furay iyo kan waxaad ka ogaanaysaa keliya wuxuu kuu sheegayaa meesha qiimaha laga furay iyo meesha laga xidhay dad baa isticmaala adiga wuxuu kuu kordhinayaa sida loo furay sida lagu xidhay kana muxuu kuu sheegayaa meesha laga xidhay meesha laga furay balaas awoodda kuwa wax iibsanaya tiradooda iyo awooddooda iyo inta awooddooda yar tahay buu kuu sheegayaa wikis baa waxaa la yidhahdaa macnaheedu waa doonaa kana waa garaafka weligiin baa taqaaneen garaafku wuxuu kuu sheegayaa meesha la marayo bis ka yimid inuu hoos aadayo kuu sheegi maayo qiimaha exactly lacagta meesha lagu furay iyo meesha lagu xidhay wuxuu kuu sheegaya garaaf ahaanbuu kuu tusayaa garaafka waa taqaanaan waxaa kugu sii xiga meesha laga soo fogeeyo iyo meesha laga dhoweeyo halka waa zoom out zoom in haddii aad analyse garanaysid suuqa aad in akhrisid waa inuu kaa fog yahay mar walba haddaad soo dhaweysatid waa kaa kan waa halka windows daaqadaha hore ma laga furaa hadda dhammaan maanta daaqadihiina o dhan baa soo kacay haddaad celinaysidna mid kamidana waa weyneyn kartaa halkan laba jeer ku dhufan kartaa exact meeshaad ka soo kicisana waad ku dhufan kartaa ujeedaan waaye midna waa iska weyneysan kartaa kana maxaa loo isticmaalaa marka kuwan waxaa loo isticmaalaa qiimuhu hadduu afka kaaga jiro waa lagu soo dhaweystaa halkana waa meel kale oo indicatoradii kuu sheegaysa tusayaashaan idiin sheegayay sida loo isticmaalo loo soo saaro waa u tegi doonaa haddii ilaah yidhahdo halkan waxay kuu sheegaysaa waa time frame baa la yidhahdaa waa xilliga aad joogtid suuqa joogtid time framadu waxa weeyaan waa candleka intuu xilliga la furay iyo xilliga la xidhay lagu qiimeeyaa saacadiiba haddaad saacadda joogtid waxa weeyaan saacaddaa wuxuu kuu sheegayaa meesha lagu furay meesha lagu xidhay saacad walba meesha lagu furay iyo meesha lagu xidhay 4 hourka afartii saac wuxuu kuu sheegayaa meesha lagu furay iyo meesha lagu xidhay dayga maalintii 24 saac meesha lagu xidhay iyo meesha lagu furay wiiga candle macnaha candlesa kuu sheegaya markaad geysid hadda 1 hour haddaan geeyo macnaheedu waxa weeyaan candleladan halkan ka muuqda macnaheedu waxa weeyaan haddaan 1 hour ka geeyo macnaheedu waxa weeyaan candleladan candleskan wuxuu ii sheegay hal saac quri iga warramaya candle walba saacad uu dhigmaa candleladan saacad walba qiimaha meesha lagu furay meesha lagu xidhay sheegaya saacad walba saacad buu igu sheegaya haddii aan 4 hour geeyana afartii saacadood meesha qiimaha lagu furay iyo meesha lagu xidhay sheegaya macnana way samayn doontaa oo analyse ka qayb qaadan doontaa haddii afartii saacadood uu qiimuhu kacayay macnahay kuu samaynaysaa haddii saacad walba uu hoos u dhacay in badan afartii saacadoodba macna kala duwan bay kuu samaynaysaa haddii maanta oo dhan uu kacay 50 biib iyo hadduu 10 biib kacay ama hoos u dhacay macnahay kuu samaynaysaa macnaha qiimaha meesha lagu furay iyo meesha lagu furay laakiin inta saacadda u dhaxaysa muxuu samaynayaa go'aan ma cadda waa baxaadeg baa la yidhahdaa mar kor buu aadaya mar hoos buu aadaya marka saacaddu dhammaato candlekaas u xidhmaya kuwa 4 saac marka 4 saac dhamaato candleka u xidhmaya marka time frame baa la yidhahdaa wuxuu kuu sheegayaa marba meeshaad joogtid haddaad 1 hour ka joogtid haddaad 1 hour joogtid haddaad 1 hour ka joogtid haddaad 15 minutes haddaad 30 joogtid haddaad 4 joogtid haddaad day joogtid candlekaa aad taagan tahay wuxuu u dhigmaa kaad joogtaa muxuu u dhigmaa candlekaa aad taagan tahay muxuu u dhigmaa 4 saacadood baa lagu furay oo lagu xidhay qiimahaas waa qiimihii wuxuu kuu sheegayaa saacadda lagu furay lagu xidhay saacad gudaheed buu kuu sheegayaa wixii lagu furay wixii lagu xidhay time frame way la fahanteen waayo waxa ku soo haray baariskan halkan waa calaamadahan waxa loo isticmaalaa wax badan baa loo isticmaalaa oo suuqa kamid ah waxyaalaha qalabka suuqa lagu analyse gareeyo waa toolka loo isticmaalo channel hadday tahay Fibonacci waxa la yiraahdo support resistance waxaas oo dhan baa loo isticmaalaa giddi waan isticmaali doonaa oo tagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sida guud way fahanteen mid baa idinku daraya waqtiga waa idinku batay caawa marka view ku tiraahid
marka view tiraahid waxaan oo dhan waa kuwan hadda chat batiska haddaan tig siiyo maujeedaa waxaa iga baxay meelihii aan lacagta ka dooranayo hoose way iga baxday meelihii hoose hee aan lacagta ka dooranaya maujeedaan way iga baxday ilaa waa iyadii baan tig soo siinaya aday haddaan view ku dhufto oo chart bat ku dhufto exactly way soo noqotaan soo ma jeedid way soo noqdeen gidi way soo noqdeen cajaladiina way dheeraatay halkaasaan kaga baxay haddii ilaha yidhaahdo intan inaan muhiimadu fahantaan weeyaan waqtigu idinku dheeraan waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka inta ka horeysa waxaan rabaa in casharadan baraadkaa soo samaysaan insha allah cajalad ku xisan soo duubi doona oo aan casharada inta dambe kaga sii hadli doono ilaa 6 7 ilaa 6 5 ka badin maayo casharada basiga ilaa heer ila gaadhaan inaad suuqa falanqaysaan aad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu